السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم قالي qiimaha qadarinta mudan sida ujeedtii maanta waxaan wadaa cashir cilaan barasho ah oo aad u fudud waa asaasiga cilaanka markaa baranaysid waxyaabaha laga bilaabo ayaa la bartaa kuwada hore intaad cilaanka baranin haddii aa kuwan aa baratid oo iska saxdid kuwa kalena ma ku dhibi doonaan waa kuwan oo la iskor saaray oo la isku dhadhajiyo ama la isku dhadhaweeyo kale waaye waa ujeedaa sida basiidka u wareejinaya caleenta adigana waxaa laga rabaa sida iska qurux badan inaa u samaysid marka hore waa inaa iska saxnaa xarfahan mar haddii aa kuwan aa sameey taqaantid maxay ahayto kuwa ka qurux badanna waa aad samayn kartaa meesha hadday kugu yaraato xataa isku day inaa gelisid si macquul ah oo qurux badan aniga qalinka xoogaa qadiisa meeshaas waxaa laga rabaa xariqtin oo fiin ah laakiin qalinka maxay ahayto xoogaa afkiisa waaweyn igu qaado fahamte waxaa isleeyahay walaalahaaga ama gabdhahaaga la wadaag wax qurux badan oo anfaca marka waxaa jiraan gabdho cilaanka si fiican u yaqaano ilaahay gacantooda u barkeeyo gabdho bilaaw ah gabdho dhexdhexaad ah iyo gabdho aan aqoonin marka waxaa ugu talagalay intaa cilaanka aqoonin ee jecel inay cilaanka bartaan adiga haddii aad taqaantid la wadaag asxaabtaada kale walaalaha kale inta aad jeceshahay inay bartaan xirfadda wax fiican waaye mar walba baro oo sameyso xirfad ku gaar ah wax walba way dhammaanayaan laakiin xirfadda maskaxdaada ku jirta ayaa gacantaada taqaana inay ku shaqeyso ma dhammaanayaan meel kasta aad joogtidna waa uga shaqeysan kartaa mar walba sameyso xirfad ku gaar ah adiga wixii rabta ha ahaato marka asxaabteeda sidaasaan dhiirigelinaa dhammaantiin inaad samaysatiin xirfad nin gaar ah xirfadane waa wax fiican maantana cashirkan aadka u fududaan oo wadaa maalmaha waa inka mashquulay anigana dhankeyga xirfad kale kasoo baranayay aniga aadaa u jeclahay waxa gacanta laga barto sida dunta cilaanka xarqaanka wax badan aan jeclahay xirfadda gacanta inaa siyaadsado fahanteen marka adinkana waxaa jeclahay sidoo kale inaa ila barataan kaalaya aa wada barano wax walbana waxay ku fiican yihiin in laysla barto markii aa haystid qof wax kula baranayo ku dhiirigelinayo wax way ku fududaanayaan maanta aniga heerka aa gaarinay ilaahay subxaana watacaala ka sukoow adinka ayaa i gaarsiiseen waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan oo 10k follow subscribe aa ii gaarsiiseen maasha allah ilaahay hana xafido dad qaaliyatiin oo qiimo badan walaalo sharaf badan waxaani dhahaa makasaayay dhammaantiin ama aan idinka nigu soo koob waxaani leeyahay ilaahay idinkii deesto ilaahay ha idin xafido ilaahay ha idin sharfo meel walba aad joogtiintiina ilaahay in ku xafido ilaahay hana barakeeyo insha allah bidnillaahi kariim waxaa rajeynayaa inaa anigana soo dadaali doono sida iila dadaasheen si lamid ah cilaan badan naqshado qurux badanne nii soo geli doono hadda naqshadahan maanta waxaa go-aansaday maadaama cilaanka asaasigiisa in aa ka bilaabo oo maalinba hadda asaasigi dhan wax cilaamada ka bilowdaana maanta nii soo dhigay insha allah hadda kadibna waxaan nii soo geli doonaa naqshado yaryar oo sida cilaanka markii la baranayo loo sameeyo sabuuradan iyo qalinkaana noo soo gaday stiikaradeenina way noo yaalaan marna stiikar marna sabuurada waa isku dhex wadi doonaa insha allah marka inta ila socoto way mahadsan yihiin dhammaantiinana waa niigu talagalay marka mar walba asaaraysid gacantaada cabsi ha barin hadda dadka markay bilaabayaan anaa kamid markaa baranayay gacanta way ijarey jirtay waxa markay ku cusub yihiin sembir gacanta way cabsanayso maa maskaxdii gacanta isla shaqeynayaan marka cabsida dhan maskaxdaada ka saar isku day inaada jareynin oo maxay ahayto asameysid wax walbo cabsida dhan iska saar marka haddii aa cabsatid gacantaada jareyska niidaada waxay shaakaas aa qaadatid ma sameyn kartid nafta ma sameyn kartid ku dhahay laakiin waa sameyn kartaa wax badan aa sameyn kartaa kan iyo midka qurux badan aa sameyn kartaa laakiin waa inaa isku daygana waa wax jiro
mar walbana waxaa fiican in la isku dadayo. mar walba isku daydidna mar walba waxaa sameyn doontaa insha allah kan iyo kuwa kale oo ka qurux badan naqshado kaale iska arag waxaa dhihi doontaa waa qofka animiya waxaan sameeyeen adoo isdhahayane adaa is arki doontid insha allah. marka dadaala dhammaan asxaabteeda dadaala inku ogahay wax walbana isku day waa wax jiro. naqshadaheenina sidaan ayay noogu socdaan oo asaasiga cilaanka barashadiisa waaye. marka wax walbana asaasay leeyihiin. guri haddii la dhisaa asaasay leeyihiin. haddii dhar la tola asaas oo laga bilaabay leeyihiin. wax walba oo la sameynaa asaas. xataa cuntada hadaa karinaysa asaasi laga bilaabay leedahay soomaha sida loo sii wada dabka ma laysaga shubaay maaha. waxba waxaa ka horeeya dabka xataa haddii la shidaa xataa asaasuu leeyahay sax. marka wax walba maadaama asaasi leeyihiin kana waa asaaska cilaanka. mar walbo wax walboona ka bilaaw asaasiga ka bilaaw bilawga wax walba bilaaw ka bilaawid waxaane markaa wax badan ani arkay aniga isu arkay shaqsi ahaanteeda adeena waa laga yaabaa inaa aragto waxaa is dhehaysaa waxaa ma sameyn kartid ma saari kartid waxaas naftaa kuu sheegayso waxaas iska dhagatir dheh waa sameyn karaa. dadkana way ku jebinayaan dadka qaar oo ku dhahayaan waxaan saacaa maa barane hadday rabaan waxay ku leeyihiin waxaan waqti ha isaga dhuminin wax kala baro adiga wixii adiga hamigaaga baro qof ha u joojinin adiga wax kala baranay sida farsamada gacantana bara kartaa. dadka qaar waxay ku leeyihiin waxaan iska day waxaan wax la barta ma aha waa ka weynaatay ama waa yar tahay intaba waa lagu dhahaa ya. laakiin looma joojiyo wax walba waa la bartaa waa la isku dayaa waxaa la isku dayna ma lahan beri ka maalin ayay ku anfacayaan. ani waxyaabo badan oo saas la dhihi jiray waxaa ma iska daysi wax kala barata ma weysay waxaan waqtigooda ma ahan waxaa sameey dhihi jiray iska daydro oo waxaa aniga rabe le sameey jirto maantana alxamdulillah heerka gaaray oo alxamdulillah على كل حال باهي dad waa oganasane ma fahamte bari bil aadanne ilaahay naga koriyo. laakiin haddaa xirfad leedahay waa ka baxday qof ma u baahanaysid ilaahay ahayn. marka aawada barano xirfad asaasiga cilaankana waa kaasaa sidaas quruxda badan oo noogu soo ilaaday naqshadaheeni. hadda dhibcani tusooya dhibcahaasna siin bari cilaanka way qurxiyaan haddii aad ka saartid meel munaasab ah iyo ewarka iyo waxaas iyo way qurxiyaan waa kaasaa. sidaasay naqshadeena noogu soo baxday. halahaan haddaa baratid waa hubaa cilaan waa baratay waa isku aadi le ma fahamtay. cilaanka lagu sheegay dhan halaanoo ka kaca iyo caleemo yar iyo xariqtimo yar iyo ulo yar oo loo sameey loo qurxiyay. marka isku day oo sameey kuwaan iyo kuwa ka qurux badan insha allah bidnil karim. waxaan ku rajeynaa inaad sameyn doontid waxaana kaaga tagay isaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.